bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaasha ina daawanaya waxaan jeclahay maanta inaan idiin soo gudbiyo qiso cajiib ah. qisadaasi waxay ka dhacday magaalada muqdisho ee dalka Soomaaliya, waana qiso xaqiiqo ah oo anigu goobjoog ma ahayn qisadaasi markay dhacaysay, laakiinse ninkii ka sheekeeyey oo aan ka dhageystay ayaa ii sheegay inay xaqiiqo tahay. inta badan culimmadu ama dadka waxay aaminsan yihiin qofka markuu hanuunayo muxaadarooyin iyo wacdi loo jeediyo oo kaliya inuu ku hanuuno. waxyaabo badan iyo meelo badan oo hidaayada Ilaahay soo marsiya ayaa jirta. haddaba qisadeenan maanta oo aan doonayo inaan halkan idinkaga soo gudbiyo waxay ku saabsan tahay wiil ay hanuunisay gabar ree aakhiraad ah. wiil hidaayadiisa ay sabab u ahayd gabar ree aakhiraad oo dhimatay. marka wiilkani wuxuu ahaa wiil harqaan ayuu toli jiray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ku yaala ayuu harqaan ku toli jiray. in badan ayuu harqaankaasi ka shaqeynaya. harqaanla ayuu ahaa. qof walba shaqadiisu dadka shaqooyinka la gooni ayay haystaan. nin waa macalin iskuul u dhigaa, nin waa harqaanle, nin waa darawal, nin waa krishboy, ninba shaqadiisu waa gooni. ninkan shaqadiisu waxay ahayd harqaanle ayay ahayd. wuxuu ahaa oo xariif ku ah ee dadka ku yaqaaneen oo asaga noloshiisa uu isku yaqaanay inuu yahay nin shukaansi badan. gabdhaha ayuu in badan uu shukaansanaya. shukaansigana sidiisaba ujeeddo loo shukaansada ayaa jira, oo qofka ama ninka ragga markuu shukaansanayo waxaa la doonayaa gabadh uu shukaansaday inuu guursado. ninkan gabdhaha ayuu shukaansan jiray asagoo wax dana iyo ka lahayn, muraad guursi aan ka lahayn. shukaansigiisuna wuxuu ahaa mid oo isdaba joog ayuu ahaa, kaas oo siday culummada inoo sheegeen haddii uu shukaansiga sidaasoo kale uu kaa noqdo in uu dembi kaa soo gaarayo. marka ilaahay ayaa hanuun la doonay ninkaasi. markii dambe gabadhoo arkaba uu shukaansan jiray. midda meesha harqaanka ugu timaado oo macaamiisha u ah wuu shukaansan jiray. tu cusub hadday xaafadda timaado wuu shukaansan jiray. gaari haddii uu raaco gaariga dadweynaha, gabar hadduu ku arko kursiguu fadhiyo mid u dhow ay soo fadhigisato wuu shukaansan jiray. gabarhays yaqaanaan gabar la socoto hadduu arko wuu shukaansan jiray. asaga iyo gabadha waxaa micnaha ka dhexeeyey inuu shukaansado un. maalin dambe hidaaya ayaa ilaahay la doonay iyo hanuun, inuu ilaahay hanuuniyo ayuu ninkan la doonay. waxay sidaasi ahaataba maalin dambe xaafad balaagsii asagoo maraayo, qofkii yaqaana ayaa yaqaana oo magaalada muqdisho ku taalo, ayuu la kulmay gabar. habeen ayay ahayd. gabadhii ayay meesha isku arkeen oo isku barteenoo gabadhii ayuu shukaansaday. shukaansigiisu wuxuu socdaba waqti dheer ay isku qaadatay labadooda. markay wada daaheen oo waqtigii ay ku daaheen oo habeenkii waqti dambe ay gaartay ayuu yidhi gabadhii aan ku dhaweeyo, gurigaada aan ku dhaweeyo. wuu ka codsa. marka iska dhaafay tiri walaalow hay dhaweyninay tiri. inay dhaweysa ma rabay, hay dhaweynin. aniga ciddeeda aqaano, guriga anaa tegaayo, haddaad doonto adaan ku dhaweynayaa. markaasuu ka codsaday oo ilaa aan ku dhaweeyo. sheekadan waxaan ka dhageystay wiilka arrinta ay ku dhacday oo ka sheekeynayo. wuxuu leeyahay markay gabadhii aan dhaweeyey oo gurigooda aan geeyey, albaabkay gargaraacday, albaabka laga furay, guriga gashay. intay guriga gelin ka hor oo albaabka aysan gargaraacin ayaan banaanka aan istaagnay, meel darjiina oo gurigooda iridooda ku yeesho. aan isla fadhiisanay wax yaraan wada sheekaysanay. markaa macsalaameeyey oon dhahay macsalaama oo aan kala tegaynay ayay waxay ugu tiri aniga lima helo maalin walba, waxaa la helaa maalmaha khamiista iyo maalmaha jimcaha bisaa la helaa. haddii ay ii imaanayso arbacada ha ii imaanin, khamiista iyo imaaw ama jimcaha iyo imaaw. wiilkii maalintaas oo gabadha la kulmayay habeenkaas waxay ahayd isniin ayay ahayd. wuxuu ku qasbay in uu arbacada u yimaado. ayadana way ka diiday. waxay dhahday haddaa arbaca ii timaado ama maalinaha khamiis ama jimcahan ii timaado mashquul ayaan ahay, si kale iguma arkaysid. maalintaas oo waxay arki kartaa oo keliya maalin jimcaha ama maalinta khamiista oo keliya ayaa arki kartaa.
wiilku arrintan ka sheekeynaya markay soo kala tageen wuxuu dhahay gabdho badan waa soo shukaansaday laakiin gabadhan waxay igu rida dareen aad u weyn qalbigayga way bedeshay qalbigaygana waxay u bedeshay si aad iyo aad u weyn ayay qalbigayga u bedeshay marka maalintii oo dhan marka maalintan habeenkan la kulmay isniin ay ahayd subaxii isniinta oo dhan qalbiga kusoo laalaabanaysay waan isceliyey inaan raadiyaan damcay ma fahanta wax oo teleefon kala ma qaadan waqtigaasi oo gabadhan ninkan shukaansanayay Soomaaliyaba teleefon kama jirin marka wuxuu leeyahay wax teleefon kama qaadan mid kale ilaahay amarkiis waan iscelin waay isniintii waan isceliyay talaadadii waa sabray arbacadii markii la gaaro waan iscelin waay waa soo dhaqaaqo yiri ayadana dhowr jeer hore iga digtay inaan maalinta arbacada aan la arkeynin habeen iyo maalin waxay noqoto khamiis iyo jimco oo kaliya in la heli karo ilaahay amarkiis arbacadii gurigii aan ku dhaweeyay oo xaafadda Balaaxi kama dheereen oo Balaaxi ku yaal markaa imaaday oo albaabka aan gargaraacay gabadha iga furto yiri albaabka markaasaan weydiiyay magacii gabadhaan isku baranay aan isku sheegnay aan weydiiyay gabadhaasaan u baahanahay ayaan eroyir gabadhu waa isku naxadeed markaa magac u sheegay oon dhahay heblaayo u baahanahay aniga hadda magac ma xasuusto laakiin heblaayo hebel ayaan u baahanahay ayuu oo gabadhii aan naxday oo tiri heblaayo hebel halkee ku baratay markaasuu yiri heblaayo hebel waa isbaranay oo xalay aan isbaranay oo xaafadan ku baran ayada ay balamiso xaafadan xalay u soo dhaweeyay oo habeenka isniintan aan inta keenay waxaas macquul ma ahanay dhahday gabadhii way yaabtay gabar kale oo walaasheeda wacday heblaayo kaale soo dhawo wiil albaabka taagan heblaayo raadinaya gabadhiyaas soo istaagtay markaasay tiri maxaa raadinaysaa hebel oo halkee ku aragtay habeenka isniinta ugu dambeysay madaxa qabsatay gabadhan ilaa markii dambe gabadha aabeed loo yaco gabadha aabeed markii loo wacay oo la yiri heblaayo ma taqaanaa markaas la yiri sawirkeeda ma haysin sawirkeeda soo bixiyo wiilkan tusa hadii ayadii tahay uu naga fakanaa caaw hadii ayada ahayn waan garaacayna sawirkeeda la soo bixiyo waa la tusay gabadha sawirkeeda markii la tusay la yiri sawirkan gabadha raadinaysa midaan miya markaas yiri waa ayada lafteeda sawir kala la soo bixiyay oo gabdho badan ay la sawiran tahay oo sawirkeeda ku dhex jirto markaas la weydiiyay la yiri sawirkan ma gabadhan baa gabadha raadinaysa markaas uu yiri waa ayadi waa midaan raadinayo oo habeenkii isniintaas oo isniintii ma is aragteen oo halkee isku arbarateen wadadan Balaaxi aan isku aragnay xaafadda ayada ay soo tustay darjiinkan banaanka wada fadhiisanay kadibna waxay tiri guriga meesha ay ugu imaa walaalayaal waxay dhibinina gabadha waa u baanahay jaceelkeeda zaid ay galay ilaa liigu yaro aabeeda wuxuu ku yiri gabadhan waa xawaayo yiri waa gabadhayda anaana dhalay 2 sano ka hor ayayna dhimatay wiilkii wuxuu leeyahay sheekadan ka sheekeynay arinta ku dhacday markii saas liigu dhahay waa gariiro dhahay jirkii dhanaa gariiro garabku ay soo qabto dhahay odaygii wuxuu soo istaajiyo dhaa gurigooda villada dariishadooda soo istaajiyay dariishadoo ay tusay wuxuu dhahay dariishadan fiiri qabriga meeshan ku yaala muujeeda waxa ku jiro waa gabadheydii oo igu yiro dhahay qabriga markaan fiiriyay waa naxo yiri habeenkii waa gariiray anoo naxsan oo gariirayo ayaa habeenkii ka soo tagay xaafadaas habeenkii oo dhan naxdin waan siixan waayo dhaa quraan la saaray maalintii kale waalidkii oo sheekay arintii dadkii dhan way aamini waayeen maalmo dhan quraan saar igu socday marka wiilku wuxuu leeyahay arintaas waa ku waansamay arintaas liiga sheekay oo gabadhaas ugu dhacday waan ku waansamay gabdhii aan shukaansan jiray shukaansiga beenta aan ku wadi jiray gabadha arkaba aan hore ka shukaansanayay waan iska dhaafo yiri hanuunka ilaahay haayo laakiin wiilkaas waxa sabab u noqotay gabadhaas ayaa sabab u noqotay qisada xaqiiqadeeda ilaahay naga garanayo laakiin ninkan wuxuu sheegay xaqiiqo inay tahay sheekadaas marka dadyo badan oo adduunka waxa jira waxyaabo kala duwan oo ilaahay hidaayad u soo marsiiyo waxyaabo kala duwan ay markaas ku hanuuneen ayadoo aayad quraan lagu aqrin ayadoo xadiis lagu aqrin si gooniya hanuunka ilaahay asaahayo qalbigiisa qofku doono ayuu hanuunka ku ridaa marka ninkaas gabadhaas ayaa sabab u noqotay qiso kale ayaan idinkaga sheekeyn doonaa oo halkan idinkaga soo gudbin doonaa qisadaasina waxay ku saabsan tahay wiil sabab u noqday inuu soo hanuuno filin uu daawaday
inta badan waxaan aaminsanahay filmaanta inay macnaha xaaraan yihiin oo waana sax waa xaaraan ma wanaagsan waqtigaada inaa meel been waqtigaada ku dhammaysid ma fiicno wax aan waxba ka faa'iideyn inaad daawatid ama waqti 3 saac ama 2 saac fadhisid ma fiicno qofka waqtigiisa waxaa loogu talagalay inuu ka faa'iideysto adduunka intuu joogo maruu cibaadaysanayo maruu shaqaysanayo maruu wax baranayo maruu qof wax barayo iyo mar uu asaga howlihiisa uu qabsanayo dunaawiga sida raashin inuu cuno dharkiisa oo dhaqdo iyo wixii lamid ah marka waxaas oo dhan shaqadaysa hoos galayaan waxaas wixii ka banaanka culimadu waxay ku tilmaameen inay tahay maalayacni wixii maalayacnigana ma fiicno laakiin qiso waxaan idiin hayaa wiil oo filin uu daawaday sabab u noqday hidaayadiisa inuu soo hanuuno dabeecadiisa ay isbedesho akhlaaqdiisana ay isbedesho waa mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan intaan mid kale hoosaan oo kale aan ku kulmi doono waa idinka tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin